Filimka waxa uu ku bilaabanayaa macluumaad hore oo howlgab noqotay taasoo degan guri ku yaalo meel tuulo ah, iyo ninkan oo asigana ka shaqeeyo shinnida iyo malabka waxyaabahaas. Macluumaadda waxa u furnaa akoonkeeda balse waxa u soo dhacay fariin sheegaysa in hard drive-keeda uu fayras soo galay haddii aydan si dhaqso leh lambaradaas u wicin daatada ku jirta dhan ay lumin doonto. Lambarkii ay wicaysaa qoladan ayaana ka qabanayso qoladan oo isku magacaawday United Data Group in la dhaho. Waxayna u sheegeen haddii ay raacdo tilmaamaha ay siinayaan in kombiyuutarkeeda uu u badbaadi doono. Sidaas ayayna sameynaysaa. Waxay u tilmaamayaan software cusub inay soo dejiso kadibna kombiyuutarka ay ku shubto. Sidaas markay samaysana dhammaan kombiyuutarkeedii waxaa la wareegayo ayaga oo waxay arkayaan lacagihii ugu jiray oo dhan. Waxayna arkeen akoonka ay ku jirto lacag aad u tiro badan oo gaarayso $2 milyan. Maadaama macluumaadda ay ka shaqeyso arrimaha samafalka, waxaa akoonkeeda ku jiro lacag fara badan oo ay mas'uul ka tahay. Kadib tilmaamihii iyo wixii markii ay raacdo, waxaa dhacaya in dhammaan hal mar kombiyuutarkeedii uu isdamiyo. Markuu isdamiyo kadibna lacagihii oo dhan inay la baxaan oo ay eber ka dhigaan kadibna halkaas ay noqoto meel cidlo ah oo aan waxba oolin. Intaas kadib maamadu waxay arkaysaa in lacagaheedii dhammaan laga wareegsado akoonka oo ayna naxaysaa. Wax ay samayso ay garan weynaysaa. Waxaan u soo dhacaya fariimaha mobilkeeda in akoonkeeda dhaqdhaqaaq uu ka jiro. Intaas kadib waxaana la tusayaa Adam Clay, ninkii malablaha ahaa oo islaanta u keenay malabkii ay ka dalbatay. Wuxuu arkay in guriga albaabkiisa ka furan yahay, bistoolad meesha taalo, balse isla markiiba asiga ayaa la qabanaya. Gabadhanna waxaa dhalay maamada, waana askariyad. Waa ay xiraysaa maxaa yeelay waxay ugu shakisan tahay inuu hooyada dishay. Waxayna leedahay maxaa u dishay hooyaday. Booliiska ayaa imaanaya halkaas ayaana laga kaxeynaya isagoo lagu eedeynaya arrintaas, balse wuxuu sheegay inuusan waxba shaqo ku lahayn, keliyana halkaas uu yimid inuu malabkan ay ka dalbatay u keenay iyada. Balse cid ka yeelaysa ma jirto waqti xaadirkaas, waxaana loo wadayaa dhanka iyo saldhigga booliiska. Isla habeennimadii gabadhii waxay baaraysaa kombiyuutarkii hooyada, waxayna arkaysaa in dhammaan lacagihii lagala baxay. Halkaasna shaki ayaa galaya. Ugu dambeyn kiiskii waxaa lagu xalinayaa in la dhaho maamada iyada ayaa isdishay oo wuxuu ahaa kiis isdil ah. Waxayna u imaanaysaa Adam Clay waxayna raali gelinaysaa. Intaas kadibna waxay u sheegaysaa in hooyadeed uu kala noqdo maadaama khaladkii maadaama uu ka weerartay iyo hadda ka hor. Waxayna u sheegaysaa in ninkan uu walaalkeed uuna dhintay. Intaas kadibna waxay u sheegaysaa in walaalkan saddexdan ilmood ka hor dhammaan akoonadeeda ay ka heli jirtay taasna ay ka shakisan tahay. Markii uu weydiiyay kadib waxay u sheegaysaa in qolada waxay u sheegaysaa in la jabsaday oo lacagihii laga baxay baaritaan kiisaysana wax caddayn aysan helin. Markii uu weydiiyay waxay u sheegaysaa in aysan waxba laga qaban karin muddo 2 sano ahna soo qabato maxaa yeelay dadka noocaas la arkaysa inay yihiin dad. Adam Clay wuxuu sheegay in soo qaban karin dadka waayeelada ah asigana wuxuu sheegay in ay tahay sababta ay sidaas u sameynayaan ay tahay inta badan dadka waayeelada ah aan loo soo raacanaynin ama laga shakinaynin, sidaas darteedna ay dadkaas u soo aadaan. Iyadana waxay sheegaysaa inaysan marnaba ka hari doonin dadkii sidaas sameeyay, ayna ka daba tagi doonto. Intaas kadib waa uu ka tagay horena wuxuu u sii qaadanayaa malabkiisii, wuxuuna imaanayaa meeshii uu ka shaqayn jiray, uu malabkii waxyaabas ku samayn jiray. Kadib taleefon ayuu dirsanayaa qolo hore uu la shaqayn jiray, ayuu weydiinayaa inay arrimahaas u soo ogaato. Baaritaan dheer kadibna waxaa la ogaanayaa qoladii falkaasi ka dambeysay magacooda iyo meesha ay joogaan intaba. Durbadiiba wuxuu soo aadayaa xaruntoodii dhexe. Markuu imaadana wuxuu sheegay inuu rabo inuu halkan galo, dabadeedna uu gubo sidaas darteed ay meesha isaga cararaan, balse ay ka diidayaan. Intaas kadibna wuxuu sheegay inuu geli doono, waa uu garaacaya labadoodiiba. Halkii ayuu galay asigoo wato 2 caag bisiin oo buuxda. Gabadhii markii soo dhaweysay wuxuu sheegay in meesha isaga cararto maadaama uu halkan gebi ahaanba gubi rabo. Waa uu soo dhexgalay oo shaqadooda iska sii wataa oo aan warba u haynin. Wuxuuna u sheegayaa in ay dhammaan maqlaan wax uu u sheegayo si ay attention-kooda u soo jiito. Midka meesha fadhiya ayuu garaacayaa kadibna way soo jeesanayaan. Meeshii ayuu basiin ku wada bilbilayaa dhammaanteed.
kadibna waxaa imaanaya maamulihii meesha isagoo sheegay arrintan uu sameynayo uu joojiyo waxaana ay yihiin wax qalad ah wuxuuna leeyahay nimankii askarta u ahaa ninkan waa inaad garaacdaan balse ayaga dhiman ayuu hal daqiiqo gudaheed ku garaacayaa halkiina wuxuu ku xiray amiin wuxuuna u sheegay in koolka ugu horeeya oo xaruntan soo baxo ay noqon doonto furaha qaraxaas ma uuna ka tagaya kadibna kool ayaa soo dhacay meeshii dhanna waa ay gubanaysaa oo ay burburaysaa halkaas ayuuna ugu soo dhaqaajinayaa intaas kadib ninkii wuxuu wacayaa ninkii asigii ka saray wuxuuna u sheegay in meeshii dhan la baabi'iyey xaruntii dhaxana laga dhigay meel burburtay arrintaasna uu sameeyey hal nin oo kaliya wuxuuna sheegay wuxuuna weydiiyay ninkaasi arrimihiisa balse wuxuu sheegay inuusan waxba ka xasuusanin kadib wiilkii aabihiis ayuu arrintii u sii sheegaya aabahana wuxuu leeyahay arrintaas aniga waxba igama qusayaan waa uuna ka tagayaa kool ayuu kusoo celinaya wuxuuna leeyahay waa inaad soo baartaan qofkii ugu dambeeyey aad lacag ka dhacdaanna arrimihiisa soo ogaada wuxuuna sheegay qofkii ugu dambeeyey ay dhaceen inay ahayd islaan waayeel ah wuxuu leeyahay halkaas ku laabta ee kasoo ogaada warbixin intaas kadib FBI ayaa halkaasi imaanaya ayagoo baaritaan sameynaya baaritaankoodana waxba uguma soo baxaya maxaa yeelay halkani wax cadeynaha kama muuqato qoladii intaas kadib intay soo baxaan ayay waxay burburinayaan dhammaan malabkii aadam kale meesha u yaal gurigiisii ayaana burburinayaan balse waa uu si lama filaan ayuu ayagu ugu soo baxay waa uuna laynaya dhammaantood midkii ugu dambeeyeyna faraha ayuu ka jaraya waa uuna ka tegayaa qolada FBI-da ahna halkaas waxay ka helayaan sawir ay dhikaar gubtay iyo baaritaan ayayna ku sameynayaan waxayna leeyihiin waa inaan dadkan raadinaa kadib ninkii asiga ahaa taleefon ayuu u dirayaa booskiisa wuxuuna sheegay in arrinta ay faraha ka baxeen dadkii uu watay dhanna la wada dilay asigana faraha laga soo jaray waqti xadirkaana oo xaaladiisa la isku jirta balse asigoo taleefonkii ku hadlaya ayuu aadam kale u imaanaya wuxuuna ku xirxirayaa gaariga kadibna gaariga ayuu kicinaya marshagelinaya halkaas ayuuna ka tuurayaa sidaas ayuuna ku dilayaa midkii ugu dambeeyey kadibna wuxuu la hadlayaa taleefonkii soo dhacay kadib wiilkii wuxuu u laabanaya haddana aabihiisa wuxuuna u sheegay in arrinta halis ay tahay dhammaan shaqaalahoodiina la dilay ninkana uu yahay nin halis ah aabahana wuxuu leeyahay arrintan waa arrin culus dadkaasna waxaa la yidhaahdaa beekeepers magacna ma lahan ID card ha sheegin meel laga tixraacay haba yaraatee ma jirto mana ahan buu leeyahay arrin lagu fududaa karo balse wuxuu sheegay in uu u diri doono dad arrintaasna lasoo afjari doono intaas kadibna waxaa dhacaya in FBI-dii baaritaankii ay sameeyaan baaritaankooda ay weli wadaan sawirkan ayayna soo caddeeyeen waxayna raadinayaan sawirka ninkan iska leh waxayna leeyihiin ninkan waa inaan soo helnaa si aan u wareysano qofkii ka dambeeyey in meesha la gubo iyo waxyaabahaas oo dhan ayagoo arrintii ka wada hadlaya waxaa usoo dhacaya taleefon waxaan loo sheegay in la helay meyd halkaas ayayna u cararayaan dhanka kale wiilkii hooyadiis ayaa waxay soo bixaysaa aabihii waxayna u sheegaysaa in wiilkeeda oo sidan u cabsanaya aysan waayahanba arkin waxayna u sheegaysaa in wax walba wuxuu u baahan yahay ay siinayso balse wiilkeeda uu caabiyay kadibna wuxuu wacayaa madaxda FBI-da wuxuuna u sheegayaa in beekeeper arrin aan laga filayn uu sameeyey ayna tahay in wiilkooda loo badbaadiyey kadibna waxaysaa waxayna u sheegaysaa in ninkaasi uu ahaa howlgab balse dib uu soo kacay haatan aysan jirin cid celin karto balse waxay haataba wuxuu leeyahay waa in ninkaasi laga takhalusaa oo la dilaa si wiilkayga oo u badbaadiyo arrintaas ayayna isku afgaranayaan waxayna soo dirayaan agent halis ah kaasoo weeraraya aadam kaleyna wuxuu manage garaynaya inuu ka badbaado saas xitaa boolis ayaa meesha imaanaya kadibna booliskii ayay garaacaysaa intii booliskii xabadaha ku ridaysa ayuu asigana fursad helayaa intaas kadibna waxay koraysaa gaarigeedii waxayna qabsanaysaa qorigeedii mashiin ganka ah waxayna xabada ku furaysaa dhammaan meeshii kadibna dhaladii malabkeeda ayuu madax ugu dhufanayaa intaas kadib ay dhacaysaa halkaas ayuuna ku gubayaa
kadibna hal far ayuu ka goosanaya si uu hadhow u isticmaalo fingerprint ahaan uu soo qaadanaya. Meeshiina saas ayay ku qarxaysaa. Aabihii ayaa la soo dhawaaqay sheegay arrinta inaan weli la xalinin, ninkiina uu badbaaday. Kadib FBI-da ayaa imaanaysa halkii ay dhibaatada ka dhacday. Meydkii ayayna eegayaan, waxayna arkayaan in meeshaani ay dhibaatooyin ka dhacday. Waxayna fiirinayaan jirka, waxayna halkan ka helayaan buug uu ka tagay beekeeper-ka. Intaas kadibna ninka odayga wuxuu isugu yeeray dhammaan asxaab hore iyo ciidamo madaxyaal ah kuwaasoo calooshooda u shaqaystayaal ah. Wuxuuna u sheegay in ay tahay in ninkaasi gebigiisaba la soo afjaro. Intaas kadibna wuxuu u sheegay inay tahay in ninkaasi ay gebi ahaanba soo dilaan. Qoladan waxay dhanka dowladda ka haystaan sharci. Kadibna wuxuu tusaa fiidiyoogii Adam Clay. Wuxuuna u sheegay ninkaasi inuu nin aad iyo aad khatar u ah, ayna adag tahay in lagu waarsado. Dhanka kale Adam Clay wuxuu galayaa xaruntii qoladaasi isagoo isticmaalaya fartii gabadha uu soo goostay. Wuxuuna ka soo qaadanayaa hub aad u fara badan. Halkan waxaa ku kulmaya waa madaxda FBI-da oo ka wareysanaya labadan agent ninkan arrimihiisa. Waxayna u sheegeen ninkan arrimihiisa oo dhan. Waxay kaloo u sheegeen in ninkani uu target gareysanayo xarumaha qoladii uu hadda ka horgubay xaruntoodii dhexe. Xarumahaasna ay yihiin kuwo dhaqaale badan ka soo xarooda. Intaas kadibna waxaa dhacaya in ay dalbadaan wax alle waxay u baahan yihiin oo ah ciidan iyo hub in loo keeno si ay ninkaasi gacanta ugu soo dhigaan. Kadibna waa loo ogolaanayaa oo waxaa leeyahay waxaa u baahantihiin waad kaxaysan kartaan. Kadibna waxay soo wadanayaan ciidamadii FBI-da oo ah ciidan aad u hubeysan. Dhankan kalena waxaa imaanaya qoladii uu wiilka aabihiis soo diray. Waxayna u sheegeen halkan ay fasax u haystaan. Qoladii FBI-dana waxaa lagu amray inay banaanka joogaan, halka qoladii kale ay gudaha u soo galayaan kalaabka. Kalaabka ay imaanayaan waxayna sheegeen meeshan ay ka jirto. Dhanka kale ayaa askartii banaanka taagan soo garaacay, wuxuuna gudaha u soo galayaa kalaabka gudihiisa. Kadib wiilkii ayaa telefoon diray, wuxuuna la hadlayaa askartii uu diray aabihiis. Wuxuuna leeyahay waa inaad banaanka tagtaan, kalaabkana waa inaad foodada ka diisaan. Ayagana banaanka ayay soo aadayaan. Ayagoo sii baxaya waxay arkayaan Adam Clay oo gudaha ku jiro. Kadibna dagaal ayaa halkaasi ka dhacaya. Ayagana dib ayay u soo laabanayaan. Israasaaseen ayaan halkaasi ka dhacayso. Kadibna halkii ayaa u dagaalamaya Adam Clay. Gudaha xarunta ayuuna ku sii dhuumanayaa. Askartii ayuuna mid u ugaarsanaya isagoo marba mid dilayo. Ugu dambeynna waxa uu soo haraya waa askartii hogaamiyahooda halkaas ayuuna ku garaacaya. Kadib FBI-da ayaa haddana arrintii maqlaysa. Gudaha ayayna u soo galayaan iyadoo hogaaminaysa gabadhii. Intay soo socdaan ayuu ninkani garaacaya, wuxuuna ka qaadanaya dhammaan warbixinada uu u baahan yahay oo dhan oo ku saabsan halkii wiilka uu joogo, wiilka aabihiis iyo hooyadiis. Wuxuu kala ogaanayaa ugu dambeyn wiilka hooyadiis inay tahay in goordhow loo doortay madaxweynenimo. Arrintaas oo sii adkeynaysa dagaalka uu kaliya kula jiro qoladani. Kadib wuxuu tusayaa sawirkii islaantii filimka bilowgiisa ay dileen. Wuxuuna leeyahay maxaad u garaacdeen islaantaas masaakiinta oo disheen, hantideedana aad u dhacdeen. Kadib Clay wuxuu ogaanayaa in mishinkiisa xiga uu noqon doono mishin aad u adag, balse FBI-da ayaa goobta soo galayso. Wuxuuna u sheegayaa in uu qabanayo howl looga baahnayo inay mar hore qabtaan. Kadibna uu cararayo, wuxuuna garaacayaa agent ka mid ah agentiyadii. Isagoo dili kara ayuu iska dhaafayaa, waa uuna ka tagayaa. Kadib dhanka kale
wiilkii iyo aabihiis wuxuu sheegay in xilligan ay tahay xilligii ay wici lahayn hooyadood maadaama arrintii ay cuslaatay. Aabihiina wuxuu wacayaa wiilka hooyadiis wuxuuna u sheegayaa in wiilkiisa uu rabo inuu soo booqdo goobta ay joogtaan uu ugu imaado kadibna way u sheegaysaa. Waxayna leedahay waad imaan kartaa laakiinse lama ogolo darooga iyo waxyaabo la mid ah. Maadaama goor dhow ay madaxweyne noqotay waxay qabanaysaa shir aad u weyn. Dhanka kale FBI waxay weli baaritaan ku wadaan Aadam Kaley mishankiisa xiga ayagoo dabagalaya. Ugu dambeyn waxayna ogaanayaan halka uu ku wajahan yahay mishankiisa xiga. Sidoo kale qoladiina baaritaan ay ku sameynayaan ayagoo ogaanaya dhammaan xarumahooda iyo halka ay ka howlgalaan oo dhan. Kadibna waxay isu diyaarinayaan sidii ay halkaasi ayagana ku tagi lahaayeen weliba ay ku soo qaban lahaayeen ninkii ahaa Aadam Kaley. Kadibna maxaa dhici doona? Kadibna waxay isu diyaarinayaan halkii lagu qabanayay xafladii caleemasaarka madaxweynaha. Sawirkii Aadam Kaleyna hore ay u sii qaadanayaan. Hadda waxay imaadeen goobtii ay imaan lahayd madaxweynaha. Goobtii ayayna tageen wiilkii iyo aabihiisna halkaas ay joogaan. Sidoo kale goobta waxaa joogay ciidamo aabaha soo watay. Ciidamadaas oo ah kuwo dilayaal ah. Maamadii madaxweynaha hadda ay goobta soo gaartay. Sidoo kale goobta waxaa si dhuumaaleysi ah ku galaya Aadam Kaley. Halkaas wuxuu soo ogeysiinaya askartii halkaas ka shaqeynayay sidaas ayuuna gudaha ku soo galayaa. Kadib dharka ayuu iska bedelayaa wuxuuna iska dhigayaa dadka martida ah oo kale. Wiilkii wuxuu wareysanayaa ninkani wuxuu ka socdaa dhanka FBI wuxuuna wiilka ka wareysanayaa arrimaha ay shirkadooda qabato balse wiilka uma sheegayo oo uu ka meermeerayaa arrintaasi. Aadam waxaa arkaya gabadhii FBI ahayd waxayna ku amraysaa in askarta dhan ay halkan imaadaan oo ay soo qabtaan. Balse qorshihiisa mar hore ayuu ka baaraan degay maxaa yeelay meesha ayuu wuxuu ku wada xiray miinadii ayuuna qarxinayaa. Kadibna askartii ayuu mid u tooganayaa isagoo gudaha u sii cararaya. Dhanka kale islaantii madaxweynaha waxay wiilkeeda u sheegaysaa in dambiyada uu galo dhan ay tahay in uu cadeysto. Haddii uu sheegi waayana ay iyada sheegayso balse arrintaasi waa uu ka diidayaa weliba isigoo sii isticmaalaya daroogo iyo waxyaabo kale. Ugu dambeyn waxaa kulmaya Aadam Kaley iyo wiilkii aabihiis wuxuuna u sheegayaa inuusan celin karin. Hadduu isku dayo inuu celiyana wuu dili doono. Halkaas ayuuna ka soo gudbayaa. Ugu dambeyn wiilkii wuxuu dilayaa ninkii FBI xaggeeda ka socday wuxuuna difaac ka dhiganayaa hooyadiis oo uu bistoolad ku qabanayaa. Goobtan waxaa soo gaaray Aadam Kaley wuxuuna leeyahay adiga ayaa qofkii saxan iyo qofkii khaldan. Kadib wiilkii ayuu tooganaya goobta ayuuna isaga baxsanayaa. Sidaas ayuuna filimka ku dhamaaday. Mac salaamo.